أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاليا maanta waa maalin murugale, waa maalin ku dhigmi doonto taariikhda ummadda Soomaaliyeed, waa maalin dhaayaheena iyo indhaheena aan ka fogaanayn, waa maalin noo muuqan doonto markaste oo dhalinyarteena eegno. waxaa la yahay masiibada dhacday waa masiibo taabatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. waa masiibo inagu dhacday, waa aafo qaran oo gudiyo dilba xarunkayga la dareemay. waxaa leeyahay dhalinyarta aafadaasi ku dhacday ilaahay sabir hay naga siiyo. intaa waxay raaca laba qodob oo isku taagayo. mid waa dardaaran oo la dardaarmay dhalinyarta. waxaa leeyahay dhalinyaroy mustaqbalkii dadka iyo dalka waa idinka. maanta adduunka waxa lagu xisaabtama dhalinyaro mustaqbalkeegu waa dalka iyo dadka wada hantiyi doonta. waxoogaha sabira baa nigula talinayaa sabirtaan, inaad dul qaadataan, inaad ka warwareegtaan yaa naftiina biimaysaan, inaad ka warwareegtaan yaa naftiina halaagtaan. meesha loo socdaana waa meesha lagu halaagmayo. duruufaha adduunka jirana qurba iyo gudaba waa lagu leeday, meel kastaba dhibaatada waa jirtaa. marka waxaa leeyahay dhalinyarta sabir baa liliga baahan yahay, dhabar adayg baa liliga baahan yahay, dalka inaad u sabirtaan baa liliga baahan yahay. annagu haddaba nahay madax dhaqameedka da'da yar loo dhalinyarta waan ila qaybsan doonaa waayo kastoo martaan. waxaanu ka balqaadaynaa inaad sida ugu dhaqsadaha badan aan madax iyo midjabari la shaqayno. waa mustaqbal burburaya tihiin, mustaqbal burburaya. haddii ummadda dhalinyarteeda burburto waxaa dhacaya in ummaddaasi ay dabargoodo. marka waxaa leeyahay dhalinyaro mustaqbalkii ummaddaa tihiin, ha dabargooyina tafiirta Soomaaliyeed, ha dabargooyina ummadda. u dulqaad dalkiina aamina, ilaahayna la kaashada insha Allah. ilaahay waa biidnillahi kariim. wax kastoo ka rajeedaysaan qurbahaba waad ka heli doontaan. intaa waxaan kaga baxayaa dhalinyarteeda dardaaranka. waxaan usoo jeesanayaa dowladda, haddii tahay dowladda Soomaaliyeed, haddii tahay dowladda Somaliland. waxaan leeyahay maanta waad aragtaan dalkeennii waxa ka gurmaya oo ka sii dabargo-aya oo ka qulqulaya oo sida daadka uga tahribaya dhalinyarteennii. haddii aad saa kusii daawataanna waxaa dhacaysa inaad cidaad xukuntaan ba weydaan, oo nin kastoo madax sheeganayaabo cid alliyo cid u xukumaba uu waayo qofka u dambeeya ka baxa dalka. waxaa la xukumaa waa dhalinyaro, waxaa la xukumaa waa mustaqbal, waxaa loo jeedayaa waa mustaqbal. marka waxaa leeyahay dowladda Somaliland iyo Soomaaliya in sida ugu dhaqsaha badan aad siyaasad qayaxan oo cad aad ka yeelataan sidii loo joojin lahaa aafada dabargoynta ku haysta dhalinyarta, sidii loo jihayn lahaa dhalinyarta. aad siyaasad cad, haddaad tihiin baarlaman, haddaad tihiin wasiiro, haddaad tihiin guurti, haddaad tihiin siyaasiyiin, haddaad tihiin tijaar, aad ka soo saartaan. annaguna waa nagu garab gelaynaa. haddaan madax dhaqameed wax alle wixii naga qabiyaan waa nagula shaqaynaynaa. maanta waxaan leeyahay waa aafo qaran, gurmad degdegada loo baahan yahay in arrintaa lagu joojiyo. dowladaha dalka iyo dadkuba dalkooda ka tahriibaan sida Liibiya iyo Masarna waxaan baaq dheer ugu diraynaa annagoo madax dhaqameedkiya kuna hadlaya afkoodii in waxay ka qabtaan dadka xadadka aad u banaynaysaan in wax ka qabataan. waxaa leeyahay safaaradaha Soomaaliyeed ee ku yaala dalalkaasi waa inay halkaa ka qabtaan shaqo fara badan oo lagu dhiirigeliyo in Liibiya iyo Masarba ay joojiyaan, waayo qayb bay ka yihiin dabargoynta Soomaalida. waxaa leeyahay haddii aad saa kusii socoto waxaa noo caddaanaysaa Masar iyo Liibiyaba inay ka mid yihiin ummadaha aan hadhow u eedayn doono amba eeda dusha loo saari doono ee dabargoynta Soomaalidahay gacanta ku haya. marka waxaa leeyahay Liibiya iyo Masarba waa in sida dhaqsaha ugu badan aad ka joojisaan oo dalkoodii ku soo celisaan dhalinyarta aad jeelasha aad bar ku gurteen, barna barda aad ku gurteen. waxaan hadalkayga kusoo ratirayaa oon ku soo ururinaya hadalkaygii. waxaan leeyahay maanta waa maalin taariikhda Soomaaliyeed galaysa, waa maalin laga xisaabtami doono, waa maalin nin kasta oo dhib ka geystay dhalinyarta u geystay lagala xisaabtami doono. haddii tahay dowlad, hadday tahay shakhsi, hadday tahay dowladaha maxay ku wada nool Afrika. marka waxaan leeyahay waar dabargoynta dhalinyarta Soomaaliyeed ha laga kaco.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.